aad bay baahidoodu u weyntii aad bay u weyn tahay xagga caafimaadka waxay tagaan balli mataan caafimaadkiisa halkaasaa la geeyaa dee waana kaamdhan hadday waxbarasho noqoto halkaasay ka lugeeyaan waxay tagaan waxbarashada degmada balli mataan haddii ay noqoto biyo waxay u doontaan marka aanu weliba marnayn dhaamka degmada balli mataan halkani waa degmada Balli mataan ee gobolka Maroodijeex oo 85 kiiloomitir dhanka bari kaga aadan caasimadda Hargeysa bulshada degmada Balli mataan ku nool ayaa isugu jirta xoolo dhaqato iyo beeraley shantii sanadood ee u dambeeyay degmada Balli mataan waxa kaamam looga sameeyay dad barakacayaala kuwaasi oo ah dadkii ay abaaruhu ku dhufteen ee deganaa dhanka hawdka kaamkan andbiga ama barakaca imika wuxuu taagan yahay 5 sanadood iyo bilow waliba dheeraada wuu badnaa kolkii hore 1500 oo qoys buu ka koobnaa 500 way noqdeen kunkii ayaa waxa qaabishay hay'ad la yiraahdo alkhayr kun qoys bay ka qaabishay dabeed 500 iyagu hay'ado yaryar oo NDB ba wax u dhiibay way iska deetageen Hargeysay galeen dhulkoodii bay qaar ku noqdeen dhulkeeduna ma aha dhul foge waa intan xuduud joogtun buu dadku ahaa waa dad Somaliland dara waa dad xoolo dhaqato abay haayeen dadkii xoolaha nool ku qaniga ahaa bay haayeen barakacayaasha ku nool degmada Balli mataan ayaa waxa ku gadaaman duruufo nololeed oo adag dhanka nolosha haday tahay biyaha waxbarashada iyo caafimaadka waxa soo hadhay dadkii nihayad ma siday barbakol u baxayeen ay maaragtay de samir male dad xoolana ma aha markay 5 bilood waayaan raashin de way iska tegayaan kolka waxa imika isugu soo hadhay dad 700 iyo waliba qundaaca waliba waxa 700 iyo wax ayaa isugu soo hadhay 700 iyo waxaasu imika marka la eego aad bay baahidoodu u weyntii aad bay u weyn tahay xagga caafimaadka waxay tagaan balli mataan caafimaadkiisa halkaasaa la geeyaa dee waana kaamdhan hadday waxbarasho noqoto halkaasay ka lugeeyaan waxay tagaan waxbarashada degmada Balli mataan haddii ay noqoto biyo waxay u doontaan marka aanu weliba marnayn dhaamka degmada Balli mataan koonaha shishe iyo degmada Balli mataan markaan isu soo fuuriyay waxay noqotay 3 kiiloomitir 3 kiiloomitirna biyadee lama dhaamin karo waad arkaysaan kaariyoonaha ku socda halkaa wadadaas wahaynaya caawa isku imanaya wasaaradda waxbarashadu kolbay noo timi kolkaasay yiraahdeen halkaa buur yar oo ah baan saaraynaa 8 galaas haddana maanu arag weli wax soo tara wasiirka waxbarashada iyo aniga oo soo kaxeeyay ayaa meel calaamadiyay haddana meeshii weli way bannaan tahay waxba lama keenin waxay ahayd imika 2 sano ka dambeeyay dadka barakacayaasha ayaa baaq diray dawladda ilaa madaxweynaha Muuse Biixi waxaan leeyahay dawladdu xubin kasto ay tahay hala eego dadka waxaan leeyahay ama xoolaha u iibiso ama beeraha u iibiso ama halkan ba ha joogeen waxbarashada iyo caafimaadka uga dadaasho dee dawladdu ha eegto meesha ayaan leeyahay Mawlid Maxamed Saciid degmada Balli mataan